maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Soomaaliya u dirtay Imaaraadka Carabta. markabka diyaaradaha xambaara ee Hadraawi 1 oo ay la socdaan 6 markab oo kuwa xambaara gantaalada ridada dheer iyo 2 gujisyo ah oo ay leeyihiin ciidamada badda Soomaaliya ayaa gaaray xeebaha dawladda Sultanka Imaaraadka Carabta si ay uga qayb galaan dhoolatus ay sameynayaan ciidamada badda ee wadamada Carbeed. hay-adda SSA ee loo soo gaabiya Somali Space Agency ee hawada sare qaabilsan ayaa heshiis la gashay dhigeeda dalka Shiinaha si wada jir ay isaga kaashan doonaan diridda dayax gacmeedka Bakool 2 oo laga gamaya saldhigga cirifka Gardafuo ee gobolka Bari ee Soomaaliya. waxaana sii raaci doona 5 cirbixiyan oo u dhashay dalka Shiinaha iyo 2 Soomaali ah oo hawada ku maqnaan doona muddo 8 iyo 10 bilood ah. warshada bacriminta uraniumka ee Guraceel ayaa la ballaariyay si ay u suurto gasho in tamarta korontada ay ku filnaato guud ahaan wadamada bariga qaaradda Afrika. wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu kala bedelay qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda waxayna u qorneed